بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa wadani tv.com waa barnaamij aada u qiimo badan oon idinku soo diyaarinay Somaliland xarigiisii iyo halka ay ku biyo shubanaysa Somaliland mustaqbalka hadduu Ilaahay yiraahdo. haddaba waxa barnaamij aada u qiimo badan daawo oo dhageyso dhammaantiin. waxaan nahay wadani tv qadiyada Soomaali weyn shanta Soomaaliyeed kuwa u taagan mana nihin kuwa dhinac u janjeero. taasina waxa ay ku tusaysaa in aan ummadda Somaliland Ilaah ugu baryayno wax kasta oo ay jecel yihiin. haddii ay jecel yihiin xornimo madaxa bannaan oo Soomaaliya ka madax bannaan sidii khayrka Ilaahay u waafajiyo waa maalin soona. taasina macnaheedu waxa weeye in aan talada wanaagsan siinayno ummadda Somaliland si ay u qaadato haddii ay doonayso wadada ay madax bannaanida ku gaari karto. barnaamijkan oo qaybtii hore aan sii daynay haddana waa qaybtan oo aan ku talagalay haddaan nahay bahda wadani tv.com. waxaan marka hore ku fureynaa hees aada u qiimo badan allaha u naxariistay magool qaado webiye isku baahan wacdaraha adduunka wax ku qaadan maysaan iyo heesti magool.
qaadan maysaan wacdaraha adduunka. halkani waa Hargeysa, bidhaanteeda halkaa arkaysaan ummadda reer Hargeysa. Somaliland waa mar kale iyo jansiga aan leenahay wadani TV ha kaga faa'iideystaano ummadooda. horay ayaan idinkugu idhi shacabka ayay qaldeen nimankii hore ee mas'uuliyiinta ahaa oo shucuur aan laga bixin karin caloosha u geliyeen, kaasi oo ah madax banaanida Somaliland. waa derbiga oo aad xoqaysaan oo aad rabtaan inaad cidiyaha ku jabsataan, laakiinse xaqiiqada dhabta aan idin sheego halka aad ka doonaysaan madax banaanida ma aha mid uu caalamka idin hayo, ma aha mid waxa idin haya laba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliya. waxa ilaahay ka sokoona waxay gacanta ugu jirtaa dowlad Soomaali oo afti idin qaada. xornimada waxaa lagu gaaraa 3 qaybood sida uu qorahayo golaha ammaanka. waa number 1 in la helo dowlad dad meel cidla ah iska degan oo maamul ahaan loogu dhawaaqo qaramada midoobeyna sida ay madax banaani u siiso si dadka jiritaankooda inta aysan gumaysiyaashii dhalanin ayay ahayd xilligaa la samayn jiray. midda labaad oo ah in laga madax banaanada gumaysiyaashii cadaanka ahaa ee muddada dheer Afrika soo helay, taasi oo loogu magac daro sanadii Afrika 1960. midda saddexaad waxa weeye dowlad marka ay ka tirsan tahay gobol ay doontana inay madax banaanaato, taasi oo ah wadada ay Somaliland hadda ku taagan tahay. waxa yaala golaha ammaanka saxiixii u saxiixeen inay la midoobayaan Soomaaliya. cid ictiraafi karta ama kalentana ma jiraan. wadada ay ku heli karaan oo kaliya waxa weeye in Soomaaliya ay walaaladood la xaajoodaan oo wada hadal nabadeed ee la yeeshaan. haddii aad u qaadaan cuqdada iyo caloosha Soomaali nacaybka ay tahayna inay iyaga gacanta idinku hayaan xorriyadda, bal xagee ka helaysaan Ingiriis oo ashirisaan, Maraykan oo ashirisaan? cid idin siin qarayso xorriyad, madax bannaan ama ictiraaf ma laha. horeyna waxaan idin iri warnimo yahow gacanta u qabta hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya maanta ka jira si aad uga heshaan afti buuxdo oo nini qaado. hadda dalka Suudaan bal markii Sawdka la madax baneenahay waa ogeedeen inta ay iskugu tageen reer galbeedka si loo madax baneenayo. meel laga maray ayaa la garan waayay in dowladda Suudaan ay tahay dalka leedahay. kadibna waxaa lagu qasbay John Grant inuu waan la yeesho dowladdii Somaliland dowladdii Suudaan, halkaasi oo ku gaareen muddo 10 sano kadib in xorriyad la siin doono. waxaana loo qaaday baarlamaanka afti buuxdo, taasi oo xataa laga codsaday maalinkii calanka la saarayay South Sudan in ay kasoo qabgalaan dowladda Suudaan. macnaheedu waxa weeye wadooyinka aan idin tusi karo waa wadadaasiito. haddaba ma aha in dadka noocaasi walaalnimo iyo deegaan iyo diin ah wadaagtaan ee Soomaalinimo in aad iyaga ugu nabcanaataan ama ay xadaaradii idin geesiso heer Soomaaliba aan nacdaan oo waa wax laga yaqiiqsado. waxay ku xiran tahay haddii aad wadadeeda diidaana waad rafaadaysaan. ultimana waxaa dhacayso in haddii Soomaaliya dowlad qaran ka dhacato oo federaal oo ay israacdo in gobollo badan oo haatan Somaliland ka tirsan ay ka bixi doonaan oo la ogyahay oo sugayaan cal inay saartaan, kuwaasoo mararka qaarkood markay Somaliland isku kacaan calamada saarto Soomaaliyeed, calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah. haddaba haddii la helo Soomaali dowlad ka dhalato inta halka ayay kaaga baxaysaa. waxaa dhacaysa adigana in lagu kala qufo oo lagu kala saaro. ultimana la helo 80% taageersan Soomaali weyn, 20 aan waxba qaban karin, halkaana aad mar kale ku soo laabataan inaad Soomaaliya hoos tagtaan. waa wadada aad ku socotaan ilaa haatan ee marka labaad jansi kale aan idin fidinay. haddaan nahay bahda wadani TV, annaga waxaan aad u jecelahay nabadda aan indhaha laga qabsan karin ee Somaliland ay gaadhay intii dagaalka Soomaaliya socday, taasi ay u qalanto xorriyad in la siiyo wax kasta oo shacabka tabanayaanna ay helaan. hase ahaatee waa idinka ayaa indhaha madow. waxaadna arki doontaa oo la yaab la maalin dhaweyto markaa dib aad u fiiriso adduunyada laguma arag dowladda adduunka 3,000 oo sano dowladda ahayd waa Ethiopia, oo ilaa xilligan adduunka ugu dambayso 7 sanana kasii dambayso adduunkan horumaray sida Maraykanka, Ingiriiska 200 sano kama badna, iyadana in 3,000 sano ka badan ayay dowlad ahayd.
horumar darrada ayay halkaa la tagtay. haddaba nin indhala ayaa dhahdeen maalin dhaweyto nahaag oo siilaya intuu raacay bilaa dukumiinti la-aan ka dhaceen jaynaha, halkaasi oo sumcad xumo aada u ballaaran somalilan oo wiiqday kasoo gaadhay. wadadan kale ee haatan idin tusaynayna waxa weeye somalilan inaysan taasoo kale mar kale ku dhicin, oo somalilanay aada waawaan walaalnimo soomaali jacayl aada dib ugu soo laabataan wadada soomaaliya. haddii kale oo ka ahayn xorriyadda ninka gacanta kuga hayo waa soomaaliya oo baarlamaan dhaba ka dhasho oo abti ku siiyo. cid kale oo xorriyad ku siin karta ma jiraan sida uu dhigayo golaha ammaanka, kaasi oo saxiixaadii horey u yaallo. mahadsanidin. waa barnaamijkaasi oo intaydu kusoo koobi doono barnaamijkan qaybta saddexaad ayaan tafatiri doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.